maanta ma ahan maalintii jaakada waxaan u soo diyaar garoobay dagaal waa hadalka xildhibaan Cabdiladiif Muuse Sanyare oo kamid ah golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haddaba maanta maxaa ka soconaya Villa Hargeysa muuqaalkan ayaan ku eegi doonaa xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay Villa Hargeysa ay ku leeyihiin mid kamid ah kulamadooda caadiga kulankaasi oo hareeyay sabaxan iyo buuqa iyadoo sidoo kale wararku ay sheegayaan in guddoonka golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale guddoonka golaha aqalka sare labadaba ay iska kaashadeen in xildhibaanada awood loo isticmaalo isla markaana xildhibaankii istaaga memberka oo ciidamo fara badan la dhigay gabi ahaanba laga saaro xarunta golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sida ay nala wadaageen xildhibaanada qaarkood oo xiriir kala duwan aan la sameynay xildhibaanada ayaana sheegay in loogu cagajugleeyay in gabi ahaanba golaha laga saari doono haddii ay istaagaan memberka iyadoo koonayaasha laga soo gala memberka la daadiyay ciidamo fara badan sidoo kale xildhibaanada ayaa gabi ahaanba lagu amray inaysan isticmaali karin taleefanadooda iyadoo muuqaal ka imaanaya golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay muujinayaan xildhibaanada oo ciidanka ku dhahaya waad inaga qaadi kartaan taleefanada waxaan sugeen oo kaliya waa inaad taleefanada inaga qaadaan si ay cadeen u noqoto kilibyada ay duubayaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ayna xaalad adag ay ka taagan tahay xarunta Villa Hargeysa oo ay ku shiraan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhanka kaleeto waxa gabi ahaanba loo diiday xarunta in maalintii saddexaad oo xiriir ah ay gudaha u galaan suxufiyiinta kuwaasi oo baarlamaanka laga mamnuucay sida wararku ay sheegayaan maadaama suxufiyiintu ay ahaayeen isha kaliya ee laga helo wararka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gabi ahaanna waxa istaagtay sharqadii warbaahinta madaxa banaan ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya